السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن صاحبيال kusoo dhawaada muuqaal cusub. Bixinta sadaqada waa mid kamid ah ficilada wanaagsan ee Allah subhanahu wa ta'ala ku celceliya Qur'aanka Kariimka salaada kadib. Runtii kelmadda sadaqa oo jamaceedu yahay sadaqaad waxa Qur'aanka lagu sheegay 12 jeer. Waxayna koobaysaa sadaqada dhammaan noocyada samafalka sida ereyga wanaagsan, bixinta hantida iyo wixii lamid ah. Nabiyullaahi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo ah kan ugu wanaagsan bani aadamka qudwa ama ku dayashan inoo ah haddii aan nahay muslimiin ayaa wuxuu aad ugu wanaagsanaa bixinta sadaqada. Ibn Abbas waxa uu ku tilmaamay rasuulka sallallahu alayhi wasallam in uu yahay kan dadka ugu deeqsisan. Haddaba saaxiibayaal waxaan rabaa inaan idin la wadaago qiso yar oo runtii cajiib ah ciwaan aan uga dhignay sadaqo maalma nusqaamiso ee ku soo dhawaada mawduuceena maanta. soo dhawaada mar kale magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. sheekadan ayaa waxa ay ka bilaabanaysaa barnaamij ka baxay TV laga leeyahay dalka Masar. barnaamijkaas oo tabarucaad lagu ururiyo isla markaana uu daadihiyo wariye Masri ah oo lagu magacaabo Umar Adeeb. wariye Adeeb ayaa dadweynaha u soo bandhigay xaaladda bukaan u baahnaa in lagu sameeyo qalliin ay ku baxayso $150,000. bukaankiina ma awoodi karin inuu lacagtaas ka bixiyo. wariyihii waxa uu bilaabay inuu qadka telefoonka u furo bulshada kana jawaabo wicitaanada dadka raba inay wax baxsadaan. dadka soo wacay barnaamijka waxaa ka mid ahaa wiil lagu magacaabo Maxamed kaasoo sheegay inuu bukaanku ku tabarucay lacag dhan $2. wariyihii ayaa intuu yaabay ku yiri wiilkii yaraa ma $2 oo kaliya. Maxamed ayaa ku jawaabay waan ogahay in $2 aysan lacag badan ahayn laakiin anigu ma shaqeeyo oo waxaan ahay bagamuundo. $2 ayaana ahayd hantida kaliya ee aan maanta haystay waxaana jeclaystay inaan sadaqaysto. wariyihii waa uu gareystay wuuna ka gudoomiyay $2. qofka ku xigay ee barnaamijka soo wacay wuxuu sadaqaystay lacag dhan $8,000. wuxuuna wariyihii ku yiri $4,000 waxaan ugu talagalay oo aan ku sadaqaystay bukaanka. 4,000 ee soo hartayna waxaan ugu talagalay wiilka $2 baxsaday. qofkii kale ee ku xigay ayaa isna baxsaday lacag dhan $10,000. wuxuuna sidoo kale u kala qaybiyay bukaanka iyo wiilkii yaraa ee $2 baxsaday. sidaa ayay ku socotay oo qof walba oo soo wac barnaamijka isla markaana lacag baxsada wuxuu u kala qaybinayay bukaanka iyo wiilkii Maxamed ahaa. dhammaadkii barnaamijka markii la gaaray lacagtii bukaanka qalliinka loogu sameyn lahaa way dhamaystirantay. wiilkii $2 sadaqaystayna lacag ku dhow $50,000 ayuu helay. taasoo ku muujinaysa in sadaqadu aysan hantida nusqaamin bal ay barakayso qofka maalkiisa. wiilkii yaraa barnaamij kale ayaa lagu casuumay si lacagtii uu helay loogu wareejiyo waraysina looga qaado. waxaa sidoo kale cajiib ahayd in inta uu barnaamijka socday ay TV-ga soo waceen 10 shirkadood oo raba inay wiilka shaqo siiyaan. daawadayaal dulucda sheekadan waxay tahay haddii aad wax sadaqaysato Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kuugu bedelayaa wax ka khayr badan wuxuuna kaa irsaaqayaa meel aadan ka filayn. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma naqasat sadaqatun min maal oo macnaheedu yahay sadaqo maal ma yarayso. saaxiibayaal intaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta. fadlan haddii uu ku cajabiyay mawduuca like saar asxaabtaada kalena la wadaag. intaan ku kulmayno mawduuceena xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.